tartankan kubada cagta oo loo qabtay laba kooxood oo ka dhisan waaxaha Faanoole iyo Argentina degmada Kaaran ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir mudane injineer Yirisow mas'uuliyiinta ciyaaraha gobolka Banaadir iyo maamulka degmada oo soo qaban qaabiyay Guddoomiyaha gobolka ayaana koobka guddoonsiiyay kooxdii ka socotay Faanoole oo 2-1 ka dubatay dhinacii kale ee Argentina ka socday tartankan ayaa lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee carruurta Afrika oo maanta ku beegan iyo sidoo kale gabagabaynta munaasabadaha ciidda hay'adda Ifraax Foundation oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaana qayb weyn ka ahayd qabanqaabinta kulankaasi Guddoomiyaha degmada Kaaran ee gobolka Banaadir ee mudane Cabdifitaax Yaanyo ayaa ku amaanay ciyaartoyda labada kooxood ciyaar wanaag ay soo bandhigeen sidoo kale Guddoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir Masar Wiish ayaa isna ammaan u soo jeediyay bandhiga quruxda badan ee ciyaartoyda Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa ka hadlay kulan ciyaareedkani lagu qabtay degmada Kaaran waxaana uu bogaadiyay dadaalkii ay soo bandhigeen labada dhinac ee ka socotay Faanoole iyo Argentina isagoo maamulka degmada iyo kan isboortigaba ku amaanay qabsoomida kulankaasi waxaan marka hore hambaliya leeyahay kooxda Faanoole oo ku guuleysatay sidoo kale dhammaan kooxihii ka qayb galayna waxay suurageliyeen in tartan ku dhaco in bishii barkeysneed ee Ramadaan si nabad ah dhalinyaradu ay ciyaarahoodana ku qabsoodaan cibaadadiina ku cibaadaystaan si nabad ahna ay ku afuraan taasna waxaa mahaddeeda leh shacabka oon u mahad celinayno oo la'aantood ay soo suurta gasheen amniga noo suurta galay inuu suurta galo sidoo kale annaga waxaa naga go'an in la dhiirigeliyo ciyaaraha iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee carruurta Afrika ayaa Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ka hadlay arrintaasi waxaana uu sheegay in waajib uu ka saaran yahay bulshada Soomaaliyeed in la dhowro xuquuqda carruurta maanta waa maalintii carruurta Afrikana marxaladeey ku nool yihiin waa la socotaan qof walba annaga naga mid ah nooga baahan yahay inaan taageerno oo aan wax alaale wixii loo qaban karo loo qabto carruurteena waa mustaqbalka dalka wadan walbana wuxuu ku dhisan yahay sidoo uga fikiro carruurtiisa annaga gobolka Banaadir waxaan rabnaa cunug walba inuu iskuulna tago waxna barto waxna akhrin karo si hadhow uu meel uga soo baxo taasna waxay ku iman kartaa kaliya iyadoo waalidiintii iyo shacabka kaleba nagula garab galaan sidii carruur walba ay u heli lahaayeen waxbarasho fursad haddaba diinta maxay ka qabtaa ilaalinta xuquuqda carruurta kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda Ifraax Foundation oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada diinka ayaa arrintan looga hadlay maanta waxaana ay culimadu ku baaqeen in la dhowro xuquuqda carruurta si gaar ah gabdhaha oo siyaabo kala duwan ula kulma tacdiyo islaamka dulmigaas xadgudubka ah islaamka ma ogol diinteena waa diin raxma waa diin naxariis marka waxa weeye barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah in la iska kaashado gaar ahaan aqoonyahanka iyo culimada iyo dadka waxgaradka iyo in la iska kaashado oo fadhiyo badan laga yeesho oo gabdhaha dooda jirto waxa ka mid ah dulmiguba inuu gabdhaha ku bilowday xagga gudidda xataa gudidda sida fiqiga islaamka uu tilmaamayo in ama shareecada islaamku ay tilmaamayso nabigeenu uu sheegay in baa la ogolyahay gudniinka waa wax aad u yar haddii loo fiirsho waa wax laga maarmi karo in maaragtay dhibaato loo geysto qofka weliba dhibaatadaas qofka hadduu u dhinto qofaan weligeena uu sameeye waa la lamaana marka inaad dhiig gasho oo dad disho si dadbanna aad u disho sax ma ah inta nabigu ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam oo uri xogaha lagu dhaweeyo waxdhe loo ku taabashaa qidca yar saasa loo taabto oo uri intaas haddii lagu ekayo gabdhahana dhib kuma aha nimanka dambe guursaana dhib kuma aha mujtamacana dhib kuma aha